annagoo dhalinyaradii Hargeysa mar walba waa xaafad annagoo dhalinyaradii Bariga Hargeysa waxaan doonaynaa halkan inaan laba kelmadood dadka iyaga iyo dawladdeedaba nidhaahno iyo asxaabta qaranka waxa horta muhiim ah inaynu isla garanno waa laba kelmadood labada kelmadood hadaynu isla fahanno wax waliba si wanaagsan buu dalkuna horumaraya dhalinyaraduna horumaraysa annagu ma jecelin dhalinyaradeeda soo kacaysa nacfiga iyo xumaanta iyo xasadka la isku xisbiyeynayo la isku xasadayo nin waliba wuxuu xaq noogu leeyahay ama madaxweynaha ilaahay sharaftiisa cirka mariyay ha noqoto Muuse Biixi Cabdi ama ha noqoto ina ciro ama Faysalka ilaahay ha noqoto mid waliba wuxuu xaq noogu leeyahay inuu weydiisto codkayaga kaliya kii fikirkaygu nala noqdana waanu siinayna haddii ilaahay yiraahdo insha Allah laakiin qofna xaq noogu ma leh inuu weydiisto dhiigayaga sida uu sameeyo ina ciro iyo xisbiga Waddani annagu Waddani ma nacbin mana diidanin kumana naan oran waan kuma codeynayno laakiin waxaanu leenahay kuma mudaharaadayno waayo kuwii hore mudaharaadada wax ku noqdayba wax allaaliyo wax habeen ma soo dulistaay war sidaad kursiga u kala qaadanaysaan sidaad u kala badinaysaan idinka idin jirta ee annaga amnigayaga iyo deganaanshaha iyagu adeerta khalkhalka nooga daaya iyo xaafadaha iyaga ciyaalkeega waxaan raacinayaa carruurtaada Finland bay joogtaa carruurtayda halkan ay joogtaa ma doonayno iyagoo jaamka iyo badharka ismarsanaya Finland carruurtaada annaguna kuwa iyagu dhaawacmaan ma doonayno adeerana daa oo naga daataa codkuna haddaad la weydiisatana ama waanu ku siinaa ama waanu ku diidi waa labadaa mid magacaygu yahay Farxaan Cabdi Garow kana mid ah dhalinyarada reer Miyir Hargeysa shacabkayga reer Miyir Hargeysa hal shay baan leeyahay waxaan leeyahay asxaabta qaranku waa isku mid ka doonto waa taageeri kartaa ka doonto wada odayn kartaa laakiin mid qura oo ku weydiisan kara dhididkaaga iyo dhiigaaga toona ma jiro xisbiga Waddani mid baan leeyahay maalintii doorashada laga helay wuxuu yiri waxaan nahayaa danta shacabkayga dhiigga shacabkana daadin maayo maantana waxaan leeyahay maadaama sidaa ugu dhawaaqday inaad tiraan mudaharaad salmiya oo aanay maanta ayna qaadi karahayn ayaan qaban qaadanaya runtii waxaan leeyahay gudoomiye waa laga qurux badan yahay golaha dhexe 200 qof kor bay u dhaafa maadaama waa doonaysid inaad mudaharaado 200 waa niman gawaadhi heli karaya madaxtooyada ha hor dhigaan gawaadhidooda ha kana mudaharaadaan masaakiin yar yar oo shacab guriga xisbiga Waddani wuxuu ku dhex yaalaa xaafad aan wado weyn lahayn meel baabuur weyn ka soo galaan aan jirin waxa ku xeeran maatiya carruur markaad mudaharaad salmiya la soo doonato dadka way waxyeeloobayaan way jajabayaan way dhaawacmayaan waxa ku jira haddii doonaan dad buka oo aan qeylada qaadi karahayn Abdurrahmaan Ero kama fikirin halku ku yaalo xafiiska golaha dhexe ee xisbiga Waddani wuxuu ku dhex yaalaa xaafadda Miyir Hargeysa xaafad aad u jaama waliba aan wado aad u fara badan lahayn waxaan ku leeyahay mudane Ero waxa aad la doonataa madaxtooyada iyo wasaaradaha mudaharaadka waliba adiga oo golaha dhexe la xisbiga kula leeyihiin oo wadada wax kula gashaday mudaharaadaya ee maaha shacabka inaad la soo doonato shacabka reer Miyir Hargeysa waxa leeyahay kuwii hore wax ku noqday ayaan xilliga cidina soo dul istaagin naafoobay mudaharaad cidina waxba kuma hesho ayaan leeyahay marka waxaan leeyahay dhalinyarada reer Miyir Hargeysa aqligiina iyo fikirkiina iyo maskaxdiina la idinkeebsanin wax mudaharaad la yiraahdo sameynina hana mudaharaadina Baaqay manacro ku dhawaaqay ahaa بريسيديد على سوقي ماضو حرطو حسبي وطني أنا جو باقا أنا كوشي تيجان روح كهلا يا وحوي على سوقي ماضو معناه روح نقول صوم مدهرات على صوب
hala isku yimaado haddii la isku imanayo waxaa la isku balansan lahaa amba xubnaha waddani iyo mas-uuliyiinta ee shaqibka lagu balami lahaa meel ay munaasib ku tahay xarunta waddani sidii qodobadii hore ay dee ka hadleen dhalinyartuna annagoo ku hadlana afka dhalinyarta bariga Hargeysa waxaan leenahay cudro hortaas munaasib kuma ahayn in aad isugu yeedho shaqweynaha Hargeysa waayo waxaa dhinaceeda meeshii ah xaafadihiiba ah waarkii dadka jaban baa ah aw aadan baa dhinaceeda ah waa luuq yar waa xaafad jaama waa maati waa iskuulla u dhow meel wal markaa waxa aan qodobka ku dari lahaa kale qodobkii uu ka hadlay taliyaha ciidanka booliska maxamed aadan askari dabagala ee ahaa mudaharaadku waddo loo soo maray ayuu leeyahay haddii aad mudaharaad doonayso cirooy waddo loo soo maray leedahay waddadeeda u soo mar annagu dhibaato intii hore noogu filan dhibaato dambana taaguma hayno markaa waxaan leenahay guddoomiye dhaliilihii hore annagu xusbina af xusbina kuma hadlano waddanina ma nihin kulmiyana ma nihin laakiin waxaan ku hadlanaa afka dhalinyarta bariga Hargeysa ya mudaharaad taaguma hayno nin walba tiisaa cuslaysay nabad baa naas lagu leh markaa nabad baan ku baaqana annagu isku soo baxaas annaga dan noomaha haddaan nahay dhalinyarta bariga Hargeysa siibaan xaafadda Miyir Hargeysa ku yaallo xisbiga waddani xarunta guud waxaan leenahay cirooy taaguma hayno mudaharaadka isku soo baxa berrito hore imaada bartaa ee dhibaato ee ka dhacda annagu mas-uul kama nihin mas-uuliyaddaana qaadi mayno xisbiga qaadi doona iyo cirkaa qaadi doona xisbiga waddani iyo xarunta waddani iyo mas-uuliyiinta waddani ayaa qaadi doona wixii dhibaatay berrito hore bartaa ka dhacda annagu kuma raacsanin waddani xaafadeedana dhibaato lama jecelin dadkayga iyo dhalinyarteeda iyo deegaanka toona dhibaato lama jecelin dhammaan dhalinyarada ku nool degmada Gacanibaax waxaan leeyahay nabadda ha la ilaaliyo nabaddu waxay muhiim u tahay waa innaga cidday wax soo gaadhaysaa ma aha maanta siyaasiyiinta ma aha cid kale waa innaga dhalinyaro hore oo ku dhaawacantay oo ku dhibaatooday mudaharaad hore dhacay ayaa jira dawladuna wax ma qaban shacabkuna wax ma qaban cirana wax ma qaban waxaan leeyahay dhalinyarada kuwiinii hore ee dhaawacnay wax ku qaata haddaad maanta dhaawacanto cirana wax kuu qaban maayo cid kalena wax kuu qaban maayo anigu waxaan intaa kusii darayaa kale nabadda ha la ilaaliyo nabaddu waa muhiim cidda u baahane ee dalka usoo kacaysa waa dhalinyarada siyaasadda innaga waxaa quro ee inooga banaanay waxa weeyaan inaynu hal cod siino xisbigaynu doonayno laakiin inooma banaana waddada ah inaynu xisbi walba amba xisbi dhiiggeena u daadino